haddii ay dadku weheshadaan dadkooda ay dunida jecel yihiin adigu wehesho Allah qalbigu wuu xanuunsadaa oo wuu bukoodaa sida uu u bukoodo oo kale jirka caafimaadkiisuna wuxuu ku jiraa tawbada iyo alla u noqoshada qalbigu waa uu qaawanaadaa sida jirkuba u qaawanaado quruxdiisana iyo dharkiisuna waa alla ka cabsiga qalbigu sidoo kale wuu gaajoodaa wuuna oomaa sida jirkuba u gaajoodo una oomo cuntada iyo cabitaanka qalbiguna waa aqoonta iyo macrifada iyo alla tala saarashada alla dartii oo wax loo jeclaado iyo ilaahay in loo noqdo subxaanahu wa tacaala qofka naftiisa garta wuxuu ku mashquulaa hagaajinteeda isagoo uga mashquula ceebaha dadka kale waqtiga oo la dayaco waxay ka daran tahay geerida maxaa yeelay waqtiga la dayaco Allah subhanahu wa ta'ala ay ka jaraysaa iyo daarta aakhiro mowdkuna wuxuu ka jarayaa oo kaliya adduunyada iyo ehelkeeda inaad shay uga tagto qaab qurxoon waa inaad ka tagtaa dhib la'aan cafinta qurxoonna waxa weeyaan inaad wax iska cafido adiga oon cataabin calaacal nageysan sabarka qurxoonna waa inaad wax ku sabirtaa adiga oon sheegan qofkii ku camal fala wixii uu cilmi iyo aqoon u leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhaxal siiyaa ogaanshaha iyo cilmiga shay uusan ogaansho iyo cilmi u lahayn waxaan eegay oo aan raadiyay duco midda ugu nafci badan sawaaba su'aasha Allah la weydiisanayo kaalmaha raali ahaanshadiisa markaa baan ku arkay suuratul faatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin qof laguma ebtaleeyo cuquubo ka weyn qalbi adeeg iyo ka fogaanshaha Allah naartaba waxaa loo abuuray si loogu dhalaaliyo qalbiyada adag sabarku isdhiibid maaha u kaadsashaduna dibdhac maaha aamusnaantuna tanaazul maaha noloshu waa xanuun uu qarinayo yadadiilo uu xaqiijinayo camal iyo camal ku dhamaanaya ajal kadibna lagu abaalmarin doono qof waliba wuxuu sameeyay ku kalsoonow in codka degani ka xoog badan yahay qeylada tifaftirnaantu iyo haadhaad la'aantuna waxay burburinaysaa ihaanada tawaaduca iyo hoos isku dhiguna wuxuu burburiyaa kedada ixtiraamkana wax tusaale ah oo loo dhiga ma leh quruxda caqligu waa fikirka quruxda carabkuna waa aamusnaanta